ciidamada xaq ururka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa dhirbaaxooyin isxiga ku dhuftay ciidamada taagta daran ee Somaliland. ciidamada Somaliland oo laga farmurjiyay talisyo aad fara badan ay kamid ka yihiin laba madaxday Tukarraq, Higlada, Gambadhe, Daladka, Agoomaha, Darimadoobe, Guriga Gobolka, Maraaga, Agoomaha iyo Goojacde. dagaalkan u dhaxeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland ayaa galay maalintii 23aad waxaana uu ka socdaa dhanka galbeed ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ciidamada xaq ururka ee gobolada Sool Sanaag ayaa dhirbaaxooyin kulkulul ku dhuftay ciidamada taagta daran ee Somaliland waxaana ka muuqda mural jab xoogan sidoo kale waxa laga qabtay gaadiidka xambaarsan qoryaha waaweyn. waxaana jira dhimasho iyo dhaawac tirabeela. intaan wararka dambe ku kulmi doono waa anigu Maxamed Cawiil كوته وررك دجالك قبل كسول.